وأنا نول بيقول هذا نول أنت مركا وان مغلي لكن أنا آخرتهم بيسي حسوسيين هي كان إلهي هود بداف آمين هذا ضل يرمد الله قشي الله أنا حقيقة وعفس إلهي هود بداف waxaan isku baraarujinaynaa ee ugu horeeya waxa weeyaan waa Allah ka cabsi in Ilaahay ka baqno Ilaahay cabsidiisu waa dardaaranka Ilaahay jalla wa ala ummadihi naga horeeyay oo kula dardaarmay inagana la inagala dardaarmay weeyaan في سورة النساء إلهي وكيلها ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلى آخر الآية إنك يكوي نجوه الرئي هل الكتاب كي ديمها أنصو دجني انت بوحن كلا دردار النبا إلهي يري إن دتك إلهي أبو رأي كبقان إلهي كعب صدان تقودنا معناها وير علماء الإسلام كو أي صارين وحويان وحي معروف إلهي كفرين لك علي وحي منكر إلهي جل وعلا يشرعيسو أي كاجوجين كجوكسو إلهي نعمة ديسا هو يكسن ماركتان عسيانك إلهي نعمة إلهي وحادوا يكستا إلهي وناقا وكفري وهو لبا وناقا إلهي وكفري ووحي نكدنتنا ويان إلهي مركو إن ليه صلاة كذا صلاة وأديك دنسادا إلهي مركو إن ليه أنيك يآمنوا الرميستا إيمانك سوى أديك دنسادا إلهي عز وجل مركو إن ليه مساجد كسو حبنادا وكاليا ووحدك دنسادا لغو شيغيا أديك فقيرة أيها الإنسان أديك فقيرة أسقوا غني إلهي أديك ضعيف وتاقير أسقوا سوى قوي القوي وإلهي عز وجل أدقوا مخلوق باتهي أسقوا نواكيكو أبورتي اسككا لها marka ilaahay naxariistiisa marna ka maarmi mayno dadka oo dhan ilaahay wada caabudana waxba ilaahay uma biirinayaan hadda ilaahay wada caasiyana waxba ilaahay kama naamusmayaan إلهي وغني استحيوا من الله حق الحياة نبي صلى الله عليه وسلم وكيلها إلهي عز وجل كحشود أبو نبي حشودك إلهي حق أولها إنها كحشوتان أبو نبي كحشود إلهي صحابة وحيد هذين يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله رسولك إلهي يوم أنك إلهي وأنك كحشونا إلهينا ونقوم مهنقنا بصحابته إلهين إلهينا وكحشونا ذاتك الله لها إلهي كحشونا ماها إنك أوكليا مقالة هذا الكا لقول لها أنا مقالة إن ماها مقالة هذا الكا وكدح لها نبي ومدينة المنورة ذاتك إريادا ونبي كلها أنا وأصحابتي سويان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وذاتك القرآن كالصفات كوي وناكسنا الله وشيغي ayakoo adduunka dusheeda socdana leeyahay ilaahay baa raalli inaga noqday inaka waa dadku nabi maxamed uu ku leeyahay istahyu min allahi haqqa alhaya ilaahay ka xishooda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xishoodka ilaahay jalla wa ala uu inagu lahaa inaad xaqnimo uga xishootaan uga xishooda buu rasuulku yiri dadna saxaabadu waxay yiraahdeen yaa rasuulallah ilaahay waan ka xishoonaa ilaahay waanan ku xamdinaa ilaahay oo ilaahayna waan ugu mahadinaynaa bay yiraahdeen asxaabtu markaabuu nabigu macneeyay xishoodka ilaahay jalla wa ala la doonayo adoonku inuu ka xishoodo waxa weeyaan madaxaya wixii uu weeleeyay inaad ilaalisid calooshii iyo hareerihiga wixii ahaadana inaad ilaalisid inaad aakhirada aad xasuusatid oo qabriga balaayada kugu sugaysa iyo fitanta qabriga kugu sugaysa inaad xasuusatid waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya qofka aakhirada doona buu nabigu leeyahay adduunyada ziinadeeda iyo quruxdeeda iyo birbirkeega uu ka tagaa buu rasuulku yiri an tahfadha ar-ra'sa wama hawa an tahfadha ar-ra's madaxa inaad ilaalisid madaxa maxaa ku yaala xubnaha jir bini aadanku ay leeyihiin xubnaha ugu qiimo badan baa madaxa ku yaala aragii baa ku yaala aragga ilaahay ku siiye kaga xisho
maqalkii baa ku yaalla maqalka ilaahay kaga xisho carabkii baa ku yaalla carabkaaga markaad hadlaysa hadalkaaga ilaahay kaga xisho maskaxdii baa ku taalla caqligaaga ilaahay ku abuura kaga xisho waa inaad ilaalisaa xubnahaas waa xubno muhiima ilaahay baa ku siiyo kugu deeqay inuu kaa qaadana ilaahay waa karay ugu ilaahay uu karaa dad badan oo maanta adduunka dusheeda inagula nool waxaad arkaysaa nicamtaasoo dhan waxay u adeegsanayaan ilaahay inay ku caasiyaan araggii waxay u adeegsadeen ilaahay inay ku caasiyaanoo waxa uusan ilaahay raalli ka ahayn bay ku eegayaan maqalkii waxay u adeegsadeen qaarkeen waxau ilaahay raalli ka ahayn bay ku dhegaysanayaan hadalkii waxay u adeegsadeen hadalle ilaahay uu raalli ku ahayn bay ku hadlayaan waxay nicmada ay haysteen oo dhan waxaa laga yaabaa inay u adeegsadeen ilaahay caza wajalla cisyaankiisii ilaahayna waxa uu nagula socdaa innaka waa dulqaadkiisa weeyaan ilaahay muxuu nagula dhaqmaa yaa dulqaadkiisa uu karay ilaahay dadka hadday aragga ku caasiyaan aragga inuu hal habeen ka qaado ilaahay waa karaa ila dadka u badan maanta mujtamaceennu waxaa laga yaabaa inaan indhaheenna inta badan aan ku eegno wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn haddana waagii markuu barya waxaad soo kacaysa adigoo iska indho qaba waxaa laga yaabaa maqalka inaad u adeegsatid waxa uusan ilaahay jalla wacala uusan raalli ka ahayn haddana waxaad soo kacaysaa adoo haddana maqalkii uu kuu shaqaynaayo qul ara'aytum in akhada allahu samcakum wa absaarakum wa khatama calaa quluubikum man ilaahun gayru llahi yaatiikum bihi ilaa aakhiri alaaya bal ka warrama baa ilaahayna leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ku yidhi u sheeg bani aadamka waxaad ku tidhaahdaa ilaahay jalla wacala uu karaaye hadduu aragga inigala tago oo maqalka uu inaga qaado oo quluubtiina ilaahay taabacuu u fulo ayaa inaga soo qaadi kara ilaahay nicmadaas uu karaa ilaahay hal mar keliya dadkeenu aragga kala tago ilaahay waa karaa oo magaalada waagu u baryo dadka oo 80% wada indhoolayaala yaa ku adeegi bal ka warrama ilaahay tabaaraka wa tacaala maqalka hadduu dadka ka wada qaado habeen keliya laakiin inta badan dadku maanta maqalkii waxaan u adeegsanaa wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn araggii waxaa loo adeegsadaa inta badan waxuusan ilaahay raalli ka ahayn carabkeennii waxaan ku hadlaynaa waxuusan ilaahay raalli ka ahayn weliba waa ilowsannahay aalaadkan inagu rakiban inay kaamera ay leeyihiin inay wax duubayaan oo maalinka qiyaamaha ay warrami doonaan banka qiyaamana dadka inta badan maanta way ilowsan yihiin bishan dhinacna waxna waad ku eegaysaa iyada laftigeegu waxbay duubaysaa ee la soco sida waxaan iminka aad ugu soo jeediseen ay wax wada duubayaan hadhowta laad la soo bixi waad furi doontaa ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون مالك قيامها وحي إلهي ونوغو الشيقي أعداد إلهي عز وجل ذاتك أدوية دوشيري انتي جوغين أعداد إلهي أها banka qiyaama ayaa la soo joojin doonaa oo la keeni doonaa iyagoo malaa'igtu xagga dambe ay ka garaacayso markaasaa ilaahay yidhi marka banka qiyaama la keeno waxaa maragga ku buuxini doonaa araggoogii iyo maqalkoogii iyo jidhkoogii markaasaa ayay odhan doonaan ayaa banka qiyaama markay ka dhaqaaqaane naarta lagu wada tuuro ee afkay ku hadlayeenna loo furo ayay odhan doonaan maxaad noogu markhaati furteen oo maragga aad noogu buuxiseen anagu ininkaani qarinayno asturayne markaa gacantiiya lugtii ayaa dib intay u hadasho odhanaysa iyo dhegtiiyo ishiibaa hadlayso odhanaysa annaku iskamaanu hadlin maanu hadli jiruna waadna ogeydeene ka wax waliba ka hadliyaa maanta laga hadliye bay odhanayaan taas waa kuma allahu rabbulcaalamiin ilaahay baa ka dhawaajiyey marka horena isagaa ina sameeyo ina abuuray isagana xaggiisa waad u soo noqoteen xishood ilaahay oo dhab looga xishooda wuxuu nabigu ku macneeyay calayhi salaatu wasalaam madaxayo wixii uu hareereeyey ee ku yaalla in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo maaragtaana ilaahay cisyaankiisa caloosha iyo wixii hareerahayga waa maxay calooshaada inaad maaragtaane mar walba aad ka ilaalisaa luqmad xaaraana
خاصة ما مساجد كان سوق بنعسك أيو كبحي الله لكن وحن حسوسنا يا مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يري كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة من الحرام أن ندركه مخافة أن يدركنا الحرام وحول أبي بكر الصديق تضبات الباب أو تضبات كالباب كسب قودو ويهي حلال أيان أغتغي نيبويري أنك وكبغين هالك حرانين إنه صوغش وهو البعلوش كورد معها ألقى واحد مرين يسوق وإنه هذا وحلالة هذا الحلال عناء النقطة عابد بالنقون إيسا كن ورعا تكون عابدا بن أبا هريرة رضي الله عنه وحال نقطة قف حلال مرتاع وحلال عناء النقو ذاتك أنك هو عبادة في عم بالنقونية وقولك نبينا عليه الصلاة والسلام إيها اتق المحارم تكون أعبد الناس وإلهي كحرمي ونكدروا ذاتك قفك هو عبادة الصوبانة هو عبادة في عم بالنقونية سائل عبادة عابد نمدو ماها سيدا لوكال الصلاة بدن يهي ماها سيدا لوكال الصوم بدن يهي ماها سيدا لوكال القرآن أخرس بدن يهي ماها سيدا لوكال حج بدن يهي ماها سيدا لوكال عمرة بدن يهي بل عابد نمدو وحويان وسيدا لوكال ورعصي يهي ويان ورع عنادها تقف على المرتاع تضباطا كسبي وتضباطا كبأي حلال أيهين أي أبو بكر صديق وحولي أيان اسكت دافيني أنا كبغينا ماشاس حرام إني نغسوك شانك كبغينا علوش إلالي وحارانتك إلالي وحق الناس كإلالي حسان بن أبي سليمان سلف هذه الأمة بكمدها وننك اللي يري تضباء لحظة السنة دين عبدالك مدقين هدو جيفانا يو فردقو كسي حنايي لحظة كاسنة نافس لسنتو قورا عدي عدفي سمعونين لحظة كاسنة بيم معانو نفتو أيضا تمسيني عنتدنا انجيكسن بلا دفنك أيو عنايي هرددنا فردق أيو كسي حنايي بيها بيلك كل أيو عبد جري مالنتو دنتينا وحالقو أركي منام بالقو أركو لقو يري يا حسان ما فعل الله بك من وراقي خير لقو أركو لقو يقانو وخير لقو تومي عياد هيدي ربك محاد كلا كلنتي بالنوشي مرقالوا ربك خير بان كلا كل مي لكن وان حب السنة والجنة مقليني البان في الجنة الله يقولها يا أبوي ولي مقلي الجنة مرقاسا يقول محاد جنة أدوكن ويدي واللقاقا هيو اللقاقا حب السنة بالنوشي وعلاقا الكدريس كيقا أيان إبرد مارك تاني ورقضها كتبت مركب قرو كتبت مركب بابو أنسنفو ورقضها كتبت إربدا كقراي أيان جاركيغا كسو قاتو كسو عاريستي أنو آنن علم أيان نفتو إيقا بحدي حق بني آدن انتابا إسوق الشيء انتابا الجنة إليقا حق سوء البابك الجنة إليقا يا مولي وإربدير أيا جنة اللوغا حباسي نكا عابدك أها اللحظة السنة صلاة الليل آنن كتاقين جيف دينا عن أقولك آنن دقين هدو سيحانا يبالي أما القدار أما الدرب بكتير سنة وطير بكتير سنة أما فردق تربع على إله بكو سيحانا يبالي إربدير بالله حبسي وجنة اللوغا حيقي مركا أيها المسلم خصوصا أيها التاجر أيها المسلم حقوق ذا بني آدم كان اسكيل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كيسي غزوت كميدا إني أحد هيد بنو ملينا أيا صحابة إلى ذنك سوى شهيد مرقاب النبي يقول كلا إني رأيته في النار النبي يقول كلا إنه جنة قالوا أو شهيد نقول إسكت داي أسقى النار تكجرا مركب رسولك عليه الصلاة والسلام نار تأيو كجري والله تصيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام وأنك دقالك بلايوها حق دقالك وقال بدن بولاي وصحابة أكتود الشهيد بوها جنة قالي والشهداء واتقرن إيسان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات أيا إلهي كل شيء يقول لي إلي بنتينها أمنا إننا محايا لي
شهيد كقالنا قعنتو دا كردنتي دقالك جهاد كدحديس كردنتي وحو أرواح دي سولها اكتسيت الله كابو نبي محمد وليه ما شهيد ماها هدو حقين الشهيد كقرية هي حقيقة أهل النار بو نبي قول النار تعيا كوارك سوى كجرة والله باري نكا دركي سيئ بدا عدي سيبا الله باري حولها مسلمين تو أي سو غنيميستين وعيه النبي قال الله كانوا والنبي قول سعد لله وضدك مسلمين تو وقيبيو أيه هاي انت النبي قال الله كيني قسمت دي النبي قول أين ندعن أيو قوي وفعنا بو كلا هري وقوغشي سايو كبحرتي انتاسو ناركو قليبا لنكاس انتاس انتابو ناركو متيستي حق إلهي وكوكو ليهي حدو دون إلهي وكوكو عذابي حدو إلهي دون وكادافي كرا لكن حق بني آدم كا إن العلي سدنو يعني إلهي دافي ما يبلغ بركة إلهي تبارك وتعالى هنو صنغونا هنو توبتك إلهي وعجيب ويا على وشة يهرره جوحي هذا وإلا إلاليو من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام يا إيضا ما نقاذ يا ابو نبي قولي يبلغ قاذي وإلا بلمي وإلالنا يا ابو نبي قولي يلا بدأ دان لحدوده وحي هذا وعربك عربك يا ريا إلالين لابد اللي وضحنا وحي هذا وفرجك لابد يا إلالين النبي قولي عليه الصلاة والسلام ورنقنا جنة وقول بلغ قاذا بلغ كان نبي محمد باي نو قاذي ما إلالنا إن شاء الله هذا مجمعين ودن يرادوا بدتهين هديات لابد حداد إلاليسد لابد حداد إلاليسد عربكنا وحل لقود دبرا وذكرك إلهي فرجigana waxa lagu dabraa maaragtaan imma waa soonka badso imma guur xalaal iska guursa arsaaqada ilaahay ba ku siinayay arabka maxaa lagu dabraa ya la yazalu lisanuka rabbun bi dhikrillah arabka waxa lagu dabraa ilaahay xuskiisa istighfaarta badi dhikriga ilaahay badi dacwada ka shaqeeyo dhalinyarada da'daada صلاة المسجد خير كويك فرجنا وحال لقود دبرا ويوم النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ليرد الله الرايا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا أورك ليرد يسوي النبي باء قدر يا يوليه أورك ليرد النبي الله الله حيري نكي كرا ينو قرصدو النبي عليه الصلاة والسلام وفق مرقو قرصدو دين كيسي كالبات بوسو غاري كالبات كالان إلهي حكا بغابو نبي حديث كالكو يوري غوركاس فرجي هذا وكو إلالينا يا إنها هذا وكو حفظ يا هذا كرين وأودي لغو غورسنا ما أنت آنان هاي سننا وعد كودا دا شامارك تاني صون كابو نبي قولي باتسو اثنين دي خميس تالا صوما أيام البيت كالا صوما صون كوا تربيد ويان يكسر الشهوة عائشة رضي الله عنها واتي ورنجرتي بدعتي وقوها الرئيسين ومدى نبي محمد كل عبي نبي قد بدي ودرق بيتر ودرق ومرك يدرقاني على وشعي بوحيان ويش الشلادار وجلكوك أيا عيلا شهوة دودنا ويك كعدا لأنه ويك قوقدا وشهوة دودنا أيا كعدا يخين دودنا ويك ضعيف تابي تري درق بدا شهوة أيوك عيا قاجدنا شهوة ويجبسا لذلك الصوك هو علاج ويان شهوات كاغا واحد جبينيا والصوك ويان وإلا هذا الزواج كرس إلى القرصتنا قولك إلهي ما ينوفض دي اسك القرصة أو قرصة كمان الدين تلو قرصة تياد قرصة تقول روح لبدل له ما يهيجن فاظفر بذات الدين تربت يداك أبو النبي عليه الصلاة والسلام وروحها إيجن نصبها إيجن دقالها كو قادن وروحنا كو قادن ريرنا كو قادن حتى صدح دا قبدا أدقورك أساس هذا قدكتا واتكل قولي أغو وعاد قادتا أبو النبي قولي قبدا دين تلقابو أنس بن عمار الأسمعي أيا لو يري أبيه با يرو كيري
galabta caroos baa tahee soo maydho diyaar garow baa lagu yidhi. waa nin dhalinyaro ah oo qurux badan. berigaa dhalinyaradu ma haasaaweyn, iminka inagu waa iska haasawdaaye. zamanka dhalinyaradu waa balaaya adduunyada ka dilaacday. dadku berigaa way asturnaayeen oo inankuna dadkiisu waalidka unbuu ka warsugaayey, inantuna waalidadeeda unbay ka warsugaysay. markaasuu ku yidhi aabbo inan baa kuu soo hello caroos baa tahee caqdigiina iminkaan samaynaynaaye soo diyaargarow dharkaa soo xidho. dharkiibuu soo xidhay. qaadigiibaa yimidoo gabadhii waa la bixiyo, ehelkeediina way joogaan. caqdigii baa dhacay. isla habeenkiiba gabadhii waa loo wareejiyey. qolkii gabadha carosadu ay ku jirtay markuu u soo galay waxay noqotay gabadh yaroo kuusan oo isaga aanan cajabin. isagu laakiin waa nin dheer oo cad oo qurux badan maasha allah. iyadii laakiin waxay noqotay tu yaroo gaaban oo yar kuusan oo isaga aanan cajabin. ila daa'iman dhalinyaradu maxay jecel yihiin ya gabadhaha dhalinyaradu maanta ay jecel yihiin waa gabadh uu doonaya sida isagu uu doonayo loogu abuuro. markuu galay buu arkay gabadhii, iyaduna way ku faraxdeen ninka quruxdiisa iyo suuraddiisa iyo isagii laakiin ma cajabin. markaabay ku tidhi ha nixin bay ku tidhi, ha murgin. khayr baa laga yaabaa ilaahay wiilkaa soo dhex mariyay, ha murugun bay ku tidhi. markaasuu hadalkeygii buu ku farxo wuxuu is yidhi kollay hooyadaa iyo aabbahaa gabadhan waxay kuugu dooreen waa khayri ku og yihiine ilaahay casa wajalla taacadda waalidkaaga kugu hoojin maaye waalidkaaga iska adeeco iska barakayso. habeenkii ugu horraysay u caroos galay ayaa ilaahay ducadii u aqbalo caloosheediiba isla markiiba ilaahay ilmuu dhigay. ilmihii wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu dhalay ninkaasi. imaam maalik binu anas. madhabkeena shaaficiga sheekheena imaam maxamed bin idriis ashaaficiyi raximahullah macallinkii uu cilm alxadiiska iyo kutubta uu ka bartay ayuu wiilkii yaraa dhalay baa layidhi. wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu ku curtay imaam daar alhijra. imaam haddaad gabadha diinta la aad doonatid awlaad barakaysan oo culamaaya oo ilaa qiyaamaha adigana kuu soo ducaysa, ilaa qiyaamahana cilmigooga ummaddu ay intifaacsato ayaa ilaahay kuu soo dhex marinaya. lidaalika farjigeenna waxaan ku ilaalinaynaa waa soonka iyo guurka xalaasha. carabkeennana waxaan ku ilaalinaynaa waa ilaahay dikrigiisa iyo maaragtaan iyo cibaadada iyo diinta. man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna. nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayaa ii ka damaano qaadaya labadaa daan dhexdooda wixii ahaado carabka iyo labada lugood dhexdooda wixii ahaado farjiga ayaa labadaa ilaalin buu nabi maxamed uu leeyahay. or aniguna marka qofka ilaahay ka xishoonaya waa inuu cawradiisa ilaaliyaa, waa inuu carabkiisa ilaaliyaa, waa inuu araggiisa ilaaliyaa, waa inuu maqalkiisa ilaaliyaa, waa inuu hadalkiisa ilaaliyaa, waa inuu caqligiisa ilaaliyaa. waman araada alaakhirata taraka ziinata addunya. qofka aakhira doonkaa buu nabigu leeyahay ziinada adduunyada uu ka tagaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. aakhira doon haddaad tahay adduunyada ziinadeeda ma jeclaanaysid. marka insha allahu tacaala kuwa diintooda qabsada ee diintooda ka shaqeeya ee dacwadda iyo khayrka ummadda ugu yeedha ee naftooda islaaxiya allah inaga dhigo insha allah. soo diyaar ma nihin? allah inagu anfaco. haddii laynaga dalba diinta inaan waqti iyo dhaqaala ku bixinana soo diyaar ma nihin? waida stunfirtum fanfiruu. nabigeennaa yidhi haddii laynaga dalbo inaad diinta u baxdaan buu nabigu war diinta u baxa. markaysa soo diyaariya insha allah. habeen dambana jimco waa markaska kulankii diiniyadda markaska ka jira ka soo qayb gala insha allah. dembigeenna allaha dhaaf, dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf, diinta allah inoo macaaneeyo, maralkeenna allaha shaafiyo, mawtaadkeenna allaha u naxariisto, amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo. dad badan oo walaalaheenoo ducadoon ayaa jiray. qof alli qofkii kurbaysa kurbada allaha ka qaado. dhallinyarada guurdoonkana guur xalaala allaha siiyo. gabdhaha guurdoonkaana wiilal wanaagsan oo diin iyo dabeecad wanaagsan allaha ku hagaajiyo. maciishadan cidhiidhiga allah inooga saaro. muslimiinta qulubtoodana allaha mideeyo. muwaafiqiin midnimana allah ina siiyo. shaqaale diinada la aqbala allah inaga dhigo. waalidiinteena wixii dhintay xaq nagula allah u naxariisto. innagana allah inooga daba naxariisto. sala allahu calaa nabiyina muxamed.